dhegeystayaal ku soo dhawaada radio Shinilo aad ka dhageystaan barta internetka shinilemis.com hadaba barnaamijkeena maanta waxaan idinku haynaa wariye Cabdisamed Maxamed Cabdilaahi oo fasax ku jooga magaalada Xariirad oo aan sabka telefoonka ku wareysanay asagoo jooga isla magaaladaas ku soo dhawaada wariye Cabdisamed radio Shinilo وانت وحي كما الآن ما صنطعي وعن سلام يابانا شنيدا نيوز ورياشي عالم جيفو كلا سيقان دافع الدنيا شنيدا نيوز آدون قدوان بل مركا وراء عبدي سمد فتح باب بوتكتي مقالة عديقو كتلا مقالة السيلة مدبر بضان لا ومد حيثو هذا وقتي كتكتي وراء إياه هذا انت وراء حيث بل كورن إنك وضع مقالة كده ربا فربضان بل جوجة مقالة حريرة نوغورن وجهان بقى إن كان جوجة مقالة حريرة المدوني هاي إلا فاته وحندها بوقمن ينكمل أعنى بضان أو مقالة لقوه يجينيو كواس أو يبقى روكي وواكد دائم مقالة حريرة أو أرجع يفتح يبني بكو بالخدان أنا هاكوه بضان كوة دايبا كوة الله يكوه جيدا markaas waxaad oran kartaa caanaha badan ee suuqa lagu iibinayo waxa keenay sababkii dadna ay ka tahay magaalada waa hagaag dhanka kalena dadyow waxaa sida naguma kala dadyow fara badan oo ka soo xagaabaxay wadanka Djibouti ayaa ilaa haatan ku soo qulqulaya ayaa leeyahay magaalada Xariirad bal ka waran hadda dadyowga soo xagaabaxay ee magaalada ku cusub iyo dadkii sii deganaa magaalada إنك أهان مجالة وعامران تاي سيدا عن هذا المكان بل كورنا لك الجوية سيدا ما دركتاني سوق وياي سيدا سوق وياي وحبك كانتها وقبنا ينحرك عليه إلا جانبية النسواني وحنا نرسل ركاب هذا بطن وقيل من جيدة كاين سهوتي قوات أو قدهان بكسوق وقليا مجالة حرر قدهان نوصل دولنا يا خوارت أي عناها كالدول موضوعي كيف تبدو غوكي كداي المجالة حرر ديالان أفتح أوقفه بحياتنا في كبوتي ولا صوت الغليات مجالة حرر واحد دنك كلنا waxaa jirtay bariyahan oo inta badan ba saddex bariyo ugu dambeysay la hadalaya in aqaladii iyo odayaashii deegaanka magaalada Xariirad la soo deynayay ilaa shalay ilaa maanta oo aan joogno maalin Arbacaa inta badan ba hadalhayntooda ay u badan tahay in maanta la soo deynay bal maxay tahay sababta ilaa hadda hakadka dib u dhigtay madrasada soo deynta iyo soo bixitaanka odayaasha xogaasha wararka ka imanaya gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxay sheegayaan in odayaashaas in la soo deynayo maalmahan ugu dambaysa ay jireen isla markaana wararka magaalada ay dadku soo dhexmarayeen in la soo deynayo laakiin wasiir door uu si karimaha gudaha ee Soomaaliland wasiir door oo maxay isagu rabo in odayaasha soo daayeen isla markaasina oo wuxuu markaas yimaado magaalada Boorama wararkaas waxay ka imanayaan dhanka magaalada Boorama inkastoo beeshii Samaroon ay ku gacantahay suldaanka madaxweynahaasi oo ku dhawaaqay in la fiidiyo odayaasha sababta ilaa hadda odayga suldaanka aad ka dhawaajisay uu ugu dhagan yahay odayaasha maxay ilaa hadda waxay tahay suldaankaasi waxay wararka ugu maqaalaa inuu beeshiisa ka soo jeestay odayaashaasi ilaa la fiidiyo doonayo marka wasiir Boorama saacadaha soo socda hadduu eedaydhaadooda magaalada Boorama imaato dhanka kalena waxaa jirtay oo ka socday magaalada Xariirad isbitaalka oo gabadh ku dhawaa sida aan wada ogsoonaayna mar dhaweyd shirkadda Telesom ayaa siisay deeq maaliyadeed bal ka waran imika ilaa hadda dhakhtarkaas dhamaystirkiisa ilaa ma laga yaabaa inuu gabadh ku dhow yahay mise waxba weli u seeraa dhakhtarkaasi gabadh ku dhow yahay ambalaastaasin dadweynuhu aad ugu tirsadeen dabcan inkastoo suuqa markaad aragto dhalinyarada iyo goobaha sheexa lagu cabo lagaga sheekeynayo ambalaasta iyo dhakhtarka Xariirad horumarka ay ku tallaabsadeen isla markaasina ay ugu mahadnaqayaan gabadhii deeqdaasi soo dirtay
isla markaasina maqaaxiyaasha xaluga cabo ayaa waxaan dhahabu qabanayaan dad badan oo suudinaya ambalaadkaasi oo baahi weyn loo qabay isbitaalka markaad dhigto haddaan usoo noqono dhinaca isbitaalka muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka socday dhaqdhaqaaq aada xoogan iyadoo haatan dhamaystiri ku dhow yahay isbitaalkaasi isla markaasina ay ka faa'iidaysan doonaan dadweynaha guud ahaanba gobolka sanad isla markaasina gobolka sanad aanu lahayn xarun caafimaad oo sidaan oo kale u baxadiyey sayla ilaa min xariirad inta udhaxaysa mid kasta isbitaal shiic buu jiraa la-aana waxaa ka faa'iidaysanayaa jari cabduqaadir lacagta morada ceelgaab dalbiyada degdega markaasina ambalaadkaasina wuxuu u fureydinayaa dhaawacyada degdega waxaa jirta maalmo dhaweyd gabadh u dhimatay dugbax isla markaasina laga waayey dabadii dugdisitaanka sababtaa waxaa la socon karaya caafimaadkii meesha u liista isbitaalkaas iminka ay qudurteenta beeshaxiisa gacanta ku hayaan waxa uu ka tari doonaa kaalin weyn isla markaasina si weyn ayuuna dadweynaha u baahan tari doonaa dhanka kalena hadda baryahan dambe magaalada xariirda waxaa kusoo badanaya goobaha ganacsiga siiba dukaanada waaweyn waxaad arkaysaa dadyo badan oo iminka danaynaya inay maalgashadaan bal ka waran iminka isbedelka ilaa inta bilahan dambe ku yimid xagga suuqa iyo ganacsiga magaalada xagga suuqa iyo ganacsiga bilahan dambe xagga haddaan usoo noqono lacagta qiimaha sarifka fasaqa dollar waxaa lagu tirisanayay ilaa kun iyo 15 bir oo lacagta etoobiyaanka xagga inta ka dambana uu ahaa 2020 qarshi xagga lacagta laanka markaan usoo noqono sarifkeeda hore waxa uu 14 kun oo boqolka qarshi halka keega dambana uu ahaa 15 kun oo laana boqolka qarshi marka maalmahan ugu dambeysa qiimaha intaasay maraysay halka kiiska daqiiqaasina ay maraysay guddooyinkii ugu dambeysay $20 magaaladu dhabti marka runta aan eegno waxay ku taalaan goob istaraatiijiya oo u dhaxaysa Somaliland iyo isku xidha Ethiopia iyo Djibouti gaar ahaanna waxa aad ay ugu dhowdahay dadweynaha ka soo baxa xagaabaha magaalada Djibouti bal ka waran jidadka ka soo baxa magaalada inteeday u kala gooshaan marka laga qiyaaso dhinaca Ethiopia iyo dhinaca Somaliland iyo dhinaca Djibouti dadka dadku waa wax inta Soomaaliya yacdo ilaa marka shacabka laga soo dhaqaaqo ilaa min xariir sababtu markay taanay dadku baa laakiin inta ay dadku bilaaro yahay wadada waa iskaali inkastoo abaaro ay ku jireen deegaamadaasi inta roobku u daay isla markaasina anagu xalay soo markii ka soo dhaqaaqay magaalada Mayacdo xuduudka ku taala Djibouti waxaan markaan argo waxaan arkaynay siibooyadu aanan qabanin maadaama ay ugu wacantay roobabkii ka dahay dhulka iyo barwaaqada aad arkaysa isha indhahaagu waxay qabanayeen intii gaaray aan saarnaa indhahaygu waxay qabanayeen dal barwaaqaa isla markaasina ay xooluhu aada ugu barkaysanayaan taasay ugu wacantahay roobkii ka dahay dhawaan gobolka xidhan roobkaasi oo gudaanba ka cusay saylac iyo xariirada dhanka kalena sidaan wada ognahay mar dhexdiiya wararkii dhinaca nooga soo darta waxaa ku jira beer aada u qurux badan oo aniga nafsadaydu ay damacdada in aan beerta ama imikadan aan xiiseynayaba meesha inaan beer ahaan aan bal xoogaa aan kaga qayb galo bal ka waran iminka meesha oo ciideedu ay wanaagsan tahay magaalada oo meel beeraha iyo ku fiican leh iyada oo weliba biyaheeda meel lagu gaari karo ka waran bal dadyoga iminka beeraha daneeyay sideebaad oran kartaa ha uga faa'iidaystaan maad aragtaan beeraha magaalada intaad badan waa runtahay jamal beeraha qurbajoogta haddii ay soo dhisanayaan waa aad magaalada xiriirna waxay ku wadan tahay dhinaca faraca beeraha oo aad aragtay gurbajoog baa ku taala sidii warbixinta hore lagu soo diray beerahii aad arkaysay waa beero isla markaasna ay kasoo bixi karaan cabdaha xabxabka inkastoo xagaaga ilaa bisha rabadaan lagaga baxo xawabka صح سيدا وذا وكسونا حد فرا بدن با loo iibiyaa wadanka Djibouti marka Ramadaankii oo kala ay tahay bal wax soo saar kale ba ka soo goyn kara hadii mesela beertii oo kala lamida la maal gashado oo awood la saaro in xad tayadiisu ama tiradiisu aad ay u fara badan tahay laga beero tireen kale ba ka soo goyn kartaa malaynaysa ilaa inta gaari ba lagu qiyaasi karaa mesela inta loo iibin kara oo dalalka darafka sida Djibouti oo kale ilaa laba baabur walahi
واتنا آدو سرعيسا مركا فضلا وحان عدسنا الددوينة قبل كسو الجيدة انت أودو دا إني مالك شران ديرها ساينا كفا يديستا خيرات كواد ما تنفع وذنك كلا إستاقا وحاجر تي مدرسة ديستا وإيادنا وحبرشو آد كسو عطو أنا مدرسة ديني بكور مدرسة داس إلى إنك مدرسة داس إسلامية سيدا نقصوا بايني واسكارا كانوا وفيدك inkastoo madrasadaasi u baahan tahay in la gacan qabto sababtoo ah waadigii arkayay culumtii kala duwanaa ee ardaydii barbaartii dacda yareed ee soo koraysay ay kaga hadlayeen meesha sababtoo ah madrasadaasi hadda ma haysato office ay macalimiinta ku nasafaanka ka dhigtay saxdanka kale laakiin waxaa jirtay iyaga laftarkooda ambulanskan iyo deeqda la soo diray boogaan fara badan oo waxaa la socota boogaan waxbarasho ah hadday tahay afka ingiriiska iyo hadday tahay afka faransiiska oo ardayda ka saacidi doonta waxyaabo badan bal ka waran ma jiraan iyaga dugsiyaal private oo magaalada dhexdeeda laga dhigo oo iyagana qaybaha ingiriisiga iyo carabiga ku saabsan marka laga yimaado madrasada dhanka kale dugsi kale waxaa jira isagana maadaragtaani dugsiga magaalada xariirad oo aan ahayn madrasada shaad isaga dugsigaas arday intee leeg baa dhigan dugsiga hoose dhexe ee degmada xariirad waa dugsiga ugu fiican islamarkaasina wuxuu ku joogaa grade 1 ilaa grade 8 inkastoo maalmaha soo socda loo fadhiisan doono imtixaankii sax imtixaankii kama dambaystii sana dugsiyeedka soo ma ardayda ugu tira badan ee gobolka ku jirta inkastoo markay ardayda fasalka sideedaad ay ka baxaan ay u gudbaan dhanka iyo boordhaka magaalada saylac dhanka kale waxaa jirta iyada laftarkooga sidaan wada ogsoonahay roobab ka da-ay baryahan dambe magaalada adiga roobabkii ilaa imka aan ku jirno xilli roobaadka maka sii jaan roobabka mase ilaa hadda waxay ku dhow roobabkii hore roobab ka dambeey ma jira roobabkii ka tahay magaalada wax saameyna kuma yeelin roobabkaas barwaaqo mooyaane jamaala wax ay soo kordhiyeen oo dhiba ma jirto inkastoo indhaha ay suuqa qabanayaan markaas soo qaadaysa caano badan oo suuqa lagu iibinayo kuwaas oo laga soo daadguraynayo magaalada xarada iyo nawaaxigeeda markaa dabcan magaalada uga baxday dusheeda waxaad arkaysaa dardaran oo qurux badan islamarkaasina soo jiidanaysa indhahaaga iyo bilicdaada inkastoo muddooyinkii ugu dambeysay ee hawlaha dartaasi ku sugnay waa hagaag waad mahadsan tahay kulley magaalada annagana waxaan rajaynaynaa dadyooga qurba joogta ee kasoo jeeda deegaanadaasi in ay qaybtooda wixii horumarina ay kaga qayb galaan bal adiga tawariyahaan cabdisanna maxaa adiga aad maanta jeceshayna halkan baaq ama salaan aada uga dhiibto dadweynaha ku dhegaysanaya horta waxaan leeyahay taageerayaasheeda ay daawada aba wararkayga xiisayo aad baan u salaamayaa meel kastiba ha joogaan waxaan leeyahay marka hore aad baan ii salaamayaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta leh ee wararkayga daawada aad baanan u salaamayaa qurbajoogta ciise meel kastay joogaan waa hagaag anaguna aad baan kaaga mahadnaqaynaa waktigaaga qaaliga ee aadna siisay iyo warbixinta tayada leh noo soo gudbisay
Yeah.